بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، halkan waxaan ka bilaabaynaa kitaabkii aan ku ballansanayn ee ahaa alwaraqaat fi usuul alfiqh. intaanan kitaabka bilaabin waxaan samayn doonaa muqadimo ama hordhac. marka hore sheekha kitaabka qoray siiradiisii yaa wax ka sheegi doonaa. marka labaadna fanniga aan dhigayno oo kitaabkani uu u yahay bilowga yaan ka sheekayn doonaa wax loo yaqaan almabaadi alcashara hordhiciisa. marka saddexaadna kitaabka alwaraqaat ayaan waxaan ka bixin doonaa tacriif, shuraaxdiisii iyo xawaashidiisa. haddaan ku horeyna sheekha aljuwayni oo aan soo gaabino taariikhdiisa, magaciisa waxaa weeye alimaamu aljaliil cabdulmalik binu cabdallah aljuwayniy ashaaficiy. wuxuu caan ku yahay imaamulxaramayn yuu caan ku yahay. wuxuu ku dhashay magaalada layihahdo juwayn oo ka tirsan naysaabuur sanadka markuu ahaa 419 hijriyada. waana magaalo caan ah oo aad iyo aad culamo badan naysaabuuri la dhihayo loo nisbeynaya ku arki doonto. waxbarashadiisii sheekha wuxuu wax ku bartay oo uu ku barbaaray isla magaalada, maxaa yeelay beecada uu ku dhashaa waxay ahayd beytu cilmin wa salaaxin wa fiqh. haddaba aabihii baa faqiih ahaa oo ah maxamed cabdalla aljuwayni, oo imaam ku ahaa fiqhi iyo culumta inteeda kaleba. sidoo kale cilmiga waxaa u wehliyey warac iyo zuhdi iyo cibaado. haddaba wiilkiisii marka halkaas ayuu ku barbaaray, kutubta uu ku bartay, culumta uu ku bartay, ilaa markii dambe aabihii uu oga dheereeyay. imaamulxaramayn waxaa loogu bixiyey maka iyo madiina labada wuu tegey, wuuna sheekh buu ka ahaa. kadibna wuxuu kusoo laabtay magaaladii uu ku dhashay oo madraso looga dhisay. madrasadaas oo 30 sano uu ka ahaa mudaris oo wax ka dhigayay oo rag badan oo culimo ah oo fuqaha ah uu soo saaray. sheekhani wuxuu alifay kutub badan. kutubtiisa ilaa 40 la gaarsiiyay oo u badan cilmu usuul wa cilmu fiqh iyo cilmu aqiida. cilmu usuulka waxaa kamid ahaa alburhaan kitaab la yiraahdo oo marjic weyn ah, iyo waraqaadka hadda aan akrinayno. cilmu fiqhina wuxuu ka alifay kitaab yiraahdo nihaayatul talab iyo mukhtasar nihaaya, labadaba uu ka alifay. sheekha wuxuu dhintay allah u naxariistee 478 hijriyada, isla magaaladiisii ayaa lagu duugay naysaabuur raximahullah. haddii aan usoo laabano fanniga aan akrinayno oo ah fan al-usuul al-fiqh. markii culimada ay u sameynayaan fanni kasta ay u sameynayaan muqadima, ku raba ha noqdo fanniga aad bilaabayno, si uu ardayga uga helo suuro iyo tasawur guud, waxaa la yihahdaa mabaadi al-cashara. falidalik mabaadi al-cashara licilmi usuul al-fiqh haddaan wax ka taataabano, tacriifkiisaan ka bilaabayna. tacriifkiisa waxaa weeye waa cilmi yubxath fi adilati al-fiqh al-ijmaaliya. يعني waxaa lagu bartaa adilat al-fiqh al-ijmaaliya. fiqhiga laguma barto, laakiin adilada guud ee fiqhiga uu ku taagan yahay yaa lagu bartaa. isla markaa waxaa lagu bartaa tartiibul adilla, sida loo kala hormarinayo adilada. waxaa kaloo lagu bartaa xaalul mustafiid, qofka muftiga ah, qofka mujtahidka ah, qofka raba inuu wax istinbaado maxaa looga baahan yahay. waxaas oo waxaa ka shakeeya cilmiga la yiraahdo usuul al-fiqh, oo fahankii oo dhan iyo qawaacid lagu kala socon lahaa oo lagu kala hagi lahaa adilada waa cilmiga loo aasaasay. saa darteed mawduuca uu ku saabsan yahay haddaan ka hadlo, mawduuca loo dejiyey fannigan oo soo gaabino waa aladilla almuusilati macrifati alaxkaam alsharciya. waa adilla alijmaaliya oo loogu talagalay in lagu ogaadaayey axkaamta sharciga. yani amar baa lagu baraya, alamru yadullu lwujuub ilaa an yasrifu saarif. idan yani qaacidadaas haddaad qabsataayo, amar kasto ama qur-aanka ku jiro ama sunnada ku jiro markii la arkaayo, waxaad u fahmaysaa si toos ah in uu waajib yahay oo shaarica uu dalbay dalaban jaazima. ama fiqhigu waxaa lagu bartaa masaa'il hoose oo furuuca, yani salaad baa laga hadli, beec baa laga hadli. kolleyna sheekhan insha allah markuu kitaabkiisa aan akrinayno waa ugu tegi doonaa. falidalik aladilla alijmaaliya lilfiqh ama alaxkaam alsharciya iyo ikhtilaafu maraatibiha wa kayfiyat alistidlaali biha. maxaa laga faa'iideeyaa? thamratuhu wa faa'idatuhu. cilmiga qofka barta wuxuu ka faa'iideeyaa kow, wuxuu awood u yeelanayaa alqudra
يعني markii qofku skill uu helo shaygani oo waqti badan uu geliyay awood yaa u abuurmayso oo ah ala istinbaat al-ahkaam sharciyya inuu qofkaasi wax istinbaadi karo inuu mujtahid noqon karo in uu iswaafajin karo mas'alada marka la weydiinayo iyo meeshii ay diinta asalka ugu leedahay saadaradeed waxaan dhihi karnaa muhiimadda ugu weyn waxa weeye qofku inuu fahmayo muraadullaahi subxaanahu wa tacaala wa rasuuluhu inuu fahmayo alkitaab wa sunna inuu si kal ilaabo u fahmo sidoo kale waxyaalaha laga faa'iido waxaa ka mid ah qofku hadduu usuul fiqhiga uu bartay wuxuu ogaanayaa diintu ama shareecadu inay tahay saalixa likulli zamaan wa makaan yani wax kastaba maadaama ijtihaad la furay maadaama maalin kasta xawaadid cusub imaanayso maadaama masaa'il cusub imaanayso masaa'isha cusub qofka marka dhirinayo oo istinbaat ku samaynayo waa usuuliga nisbatuhu min alculuum alsharciyya yani sida fiqhiga iyo xadiiska culuum sharci yahay iyo fannigan u yahay culuum sharciyya fadliga ku soo aroray barashadiisa waxa weeyaan yani at-tafaqquh fi ad-din man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din marka fadliga iyo aatharta ku soo aroortay diinta fahankeeda oo dhan yaa ku tabaqmayso usul fiqhiga waadicuhu yaa dajiyay waxaa dajiyay al-imaam ash-shafi'i rahimahullah kitaabkiisa ar-risaala imaam ash-shafi'i wuxuu dhintaan filaya 204 hijriyada marka ka hor wuu jiray laakiin kitaab qof u sameeyo oo tadwiiniyo oo masaa'ishiisa balbalaariyo yuu ahaa magaciisa usul fiqhi waa la yiraahdaa xukmu tacalumihi barashadiisa in la bartaayo waa fardu kifaaya horta waa fard waa waajib qof kasta inuu bartaayo laakiin fardiga wuxuu u kala baxaa fardu cayn iyo fardu kifaaya fardu kifaaya wey waa haddii ahlu naaxiya ama dad kamid a ummadda oo yaqaan la helo inta kala saqata cala albaaqiin laakiin qofka raba inuu mujtahid noqdo oo mufti noqday fardu cayn buu ku yahay sida salaada laga rabo u tahay fardu cayn haddaad bartaan mujtahid noqotay qofkani muftina ma noqon karo mujtahidna ma noqon karo hadduu usul fiqhi baran falidaalika cala almujtahidi walmufti qofkii doonayo fardu cayn buu ku yahay masaa'ilu hada alfan masaa'ishiisa haddaan ka bixin qaab sambal ah waxaa weeye alamru yadullu alwujuub annahyu yufiidu altaxriim alcaam walkhaas hadday isu yimaadaan yucmalu bilkhaas masaa'il qaabkaasoo kale yuu dhiraandhiriyaa oo insha allah aan ka bogan doono markii aan bilowno oo kitaabka insha allah ilaa 15 baab oo usul fiqhi soo aruurin doonaa oo aan dhihi karo intaba qofka hadduu si fiican u raacdo oo ugu dadaalo waxa weeye faham fiican buu ka helayaa fannigan waxaan kusoo gabagabeynayaa nuqdada ugu dambeysa oo ah in 3 shay aan ka hadlno sheekha siir daati oo ka sheekeynay fanniga mawaadul 10 kitaabkan alwaraqaat kitaabkan alwaraqaat waa kitaab aad iyo aad mukhtasar ah waana wado culimada hore cilmiga ay ku soo dhaweyn jireen yani fanni kasta waxa arkaysa al-ajrumiga qofku naxadu ka bilaabay waa 17 waraaq maran haddana masaa'il fanni oo dhan badi wuu ku sheegaya falidalik saas si lamid ah cilmiga usul fiqhi la yiraahdo oo cilmiga muhiimka ah iyo sheekhan oo aad bac u lahaa iyo isku dayay inuu soo gaabiyo oo qofka bilowga ah meeshuu kala qabsan lahaa jaranjarada uu soo saaro marka kitaabkan alwaraqaat shuruux badan buu leeyahay waxaa sharxa jalaaludiin almaxalli waa sana sheekh aan naqaano ah jalaaludiin almaxalli waa tafsiirka jalaaleynka haddaan maqashay waa jalaaludiin almaxalli iyo suyuudi waa say ahaa sheekh hore idan dadka ugu horreeya sharxa wey asagana xaashiyooyin badan baa saaran xaashiyad hadda aan hayo waxaa saaran addimyaati waxaa kaloo jirta xaashiyad kaloo mucaasir ah oo la yihahdo xaashiyatu nafaxaat calaa sharxi waraqaat asagana waxaa qoray sheekh la yihahdo axmed bin cabdilatiif alkhatiib aljaawi kaasna waa jira oo asagana waa xaashiyo waxaa kaloo jirto sharxi mucaasir haddaad haadinayso oo mucaasir ah waxaa ugu fiican sharxu lwaraqaat fi usuul fiqhi uu qoray asheekh cabdallah bin saalix alfawzaan oo asagana mucaasir ah kaasna waad raadin kartaa isku soo wadaduub shuraaxdiisa waa kitaabka waa mutawafir mar kasta haddaad gelisaa ama gogol garaysaa intaasoo sharaxa laakiin ha isku khaldin nadmul waraqaat iyo matnul waraqaat nadmiga markaad tiraahdaa waa asagoo la nadmiyey dabcan sida hadda ajrubigaba waa matni laakiin cimridi baa nadmiyey sidaas si lamid ah iyo cimridigu wuxuu u nadmiyey waraqaadka falidalik insha allah haddaan u helno jalse kale waa akhrin doonaa laakiin mar kastood baarayso matnul waraqaat ku baar waana nasri ee nadmi ma aha kitaabka qaabkaan u sharxayno waxaan isku dayaa inaan tabsiidiyo oo aad aan u faydiyo sidaas si lamid ah inaan isku dayin inaan culum kale ama naxwo ama fiqhi ama meelo badan aan loo joogin inaanan soo dhexgelin
waxaan kaloo isku dayay hadduu ilaah yiraahdo in yani kitaabkana laqbadiisa la saaro sharxiisoo gaabanna la saaro ee aqwaalul culamaa iyo tarjiixaad inta haddii lasoo galo kitaabka oo biyo raacaya sooma kitaabka waxaa loogu tagay qof mubtadi ah marka sheekha hadduu qowlkiisa uu xoog badan yahay mar laga xoog badan yahay haddaan aragna waa laga yaaba inaan ishaarno laakiin waxaan isku dayayaa boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 aan ka dhigayno manhajka in aan aad iyo aad usoo gaabino maadaama de waxa lagu akrinaya uu yahay social mediana waxaa weye in lasoo gaabiyo oo uu noqdo nuxurka aan ka hadalno khayru kalaami maa qalla wadalla dhihi jireen laakiin aqwaal badan iyo shuruux badan iyo waqiila waxaa la yidhi iyo maanta o dhan inaan tanaaqudaadkii ama aanan soo rarin aan isku dayno inuu kitaabku uu yahay maadaama uu yahay mubtadi loogu talagalay in calaa dariiq mubtadi aan ku akhrino hadduu ilaah yiraahdo insha allahu tacaala wallahu aclam